الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalaha sharafta la kusoo dhawaada brograamka ahi nolosha dhabta oo inkaga soo baxaya charity-ga la yiraahdo alkhayr educations and guidance center iyo dugsiga alkhayr. maanta brograamkeena walaalaha sharafta leh wuxuu ku saabsan yahay shahaadada guurka mustaqbalka. shahaadada guurka mustaqbalka yani future marriage certificates ayuu ku saabsan yahay maanta. run ahaantii maanta way taariikhda tahay taarikh 4 bishii 7 2018. waxaan halkan ummadda soomaali rabnaa inaan ku wacyigelinno guur kasta oo dhici doono insha allahu tacaala mustaqbalka waxayna soo dhaaf waabana soo dhaafeen in waraaq caddayna loo hagaajiyo wiilka iyo gabadha. sababtoo ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nuun walqalami wamaa yasturuun, yani qalinka ayaan ku dhaartuu yiri ilaahay waxay sadareynayaan asoo ka hadlaya qalinka muhiimkiisa in wax la qoro ka hadlaya allah subxaanahu wa tacaala. iqra bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam. allihii subxaanahu wa tacaala baray qalinka dadka bini aadamka, allama insaana maa lam yaclam. qalinka waa muhiim, waa lafdhabarka diinta islaamka waay, waa muhiimadda qofka bini aadamka waay, waa waxbarashada qofka bini aadamka. walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala marka uu aayaadkiisa ku dhaaranayo qalinka ku dhaaranaya yani waa wax la rabaa annaga inaan ku dhaqano wey. waxaa kaloo mataqaanaa jirta iyadana ina awala maa khalaqa allahu alqalam, shayga ugu horey alla subxaanahu wa tacaala abuuray waa maxay? waa qalinka. haye labada garab adigiyaa naga fadhiya, waxaa naga fadhiya malaa'ig way qorayaan soo maa. marka wax allaale wixii xumaani wanaag ay qorayaan. marka walaalayaal weliba khaasatan ani meeshan waxaan ugu gudbinayaa dadka cuqaasha ah, dadka mataqaana culummada, khaasatan culummada, dadka weliyaasha gabdhaha dhalay, dadka ugaasyaasha ah, war ina adeeryaalow nikaax kastoo dhacaya mustaqbalka insha allahu tacaala waa inaan qorno waraaq caddayna. waraaqda maxaa lagu qorayaa? kolley annaga ahaan waa bilownay, sababtoo waxay iska noqday wixii laba markhaatiyaa loo yeerayaa, sheikhaa loo yeerayaa, weligaa loo yeerayaa. nikaaxa shuruudiisa waa saxdee, waa la dhamaystiraya, waa lagu kala tegayaa, cuntaa la cunaya, waa lagu kala tegayaa. wax caddayna oo la haysta gabadhina haysata wiilka ay haysata ma laha. marka waa wax traditional ahaan naga noqdi waaye, waxa diinta islaamka sal kula maaha. diinta islaamka abtii waxay ku leedahay qalinka isticmaal, qor wax muhiim waaye. hataa idaa tadaayantum bidayni ilaa ajali musaman faktubuu, sooma dayna dad kala qaataan qoro. yani qofkaan ayna adeerkaya, qofkaan walaalkaya, qofkaana mataqaana waa aamina ima jirto meesha waxaa lagaa raba wax kasta ha qor. marka maxaan ummadeen u sheegaya, khaasatan dadka culummada maxaan u sheegayaa? waxaan u sheegaya waxaa weeye in adeeryaalow gabar kasta oo nikaaxi doono ha la qoro. maadaama hadda dowlad ayna jirin runaanti xoog leh, waxaan rabnaa adi dowlad noqo. war ugaas ilaa adi dowlad noqoto maxaa kuu diidi? mataqaana sheekh inaa adi dowlad noqoto wax qorto maxaa kuu diidi? wax kuu diiday male ilaa ay ka imaada dowlad nidaamsan oo soomaaliyeed oo dadka wax u kala caddaysa, ilaa ay ka imaado qor waxaada. hadda waxaa la qorayaan idiin sheegaya meeshan combyuterkeyda iyara laptopka. marka koowaad waxaa la qorayaa ninka magaciisa, maalinta iyo taariikhda iyo secondka, qiimaha maarkaa la qorayaa, saxiixa ninka meesha saxiixa laleeyahay, magaca gabadhaa la qorayaa, weligeeda ama qofka mas-uulka ka ah oo la wakiishayaa la qorayaa, meeshan waa saxiixayaa. markhaatiyaashaa la qorayaa, mataqaana waana saxiixayaan. ugu dambeyntii waxaa magaciisa la qorayaa sheikha nikaaxay iyo saxiixiisa la qorayaa. waa wax isaga sahlan.
haddaa sheekh adi ka baqaysa ama qofka gabadha nikaaxa hadda ka baqaya inuu waqti badan ku qaato, waraaqdan haddaan meesha ku hayo dhanka kale waxbaa kaga qoran, waa nikaaxan soo suubini waay, ayadoo diyaar noo ayaan la tagnay. ila mar raba adi sheekh markaa tahay waa laguu sii digayaa soo ma, gabadhaad nikaaxaysa magaceedaas haysataa, haye ninka magaciisa waad haysataa, welig waad haysataa, saas time haddaad ka baqaysa timeka inuu kugu dhaco sii qoro waraaqdaad ayoo diyaar meesha la tag. markaadi waad dhiibaysaa markaad nikaaxade oo mataqaana maxay ahayd khudbatu mataqaana xaaja aad dhamaysay, in alxamdulilahi naxmadu wanastaciinuhu iyo wixii mataqaana loogu targala aad dhamaysatid, waraaqdaade kuu sixi waxeedu diyaara, farahaad ka saaraysaa dadka. marka arrintaas marka maxay ka hortegaysaa? wax badan ay ka horteg, waxay ka hortegaysaa mathalan hadda gabadhi markii la nikaaxo inaad eryaalow fiiri, maalinta ma taqaano, taariikhda ma taqaano, mataqaana weligii ma taqaano, loo wakiishi ma taqaano, markhaatiyaashii ma taqaano, ninka naftiisa waxaa laga yaabaa inuu iska hilmaamay, shiiqa nikaaxi lama yaqaano, diinta islaamka si loogu talagalay shuruudoodii waa la dhamaystiri, waa laysi imaadi beriisa lacon, waa lagu kala dareeray. annaga markaan bilaabayna rag baa yiri inaad ere waxaan anagu ma naqaano, waqtigaa noogu dhumin, beriiskaa naga qaboobaya, ilen lama qabsanin moogta. war waxaan dhegeysa waxaan adag kuu fiicanta laftaada, beri maa beri daba haddaa gabadhaan kala tagtaan waraaq caddaynaas haysataa oo kolley annagu waan yar adkayni, waxaan ku qornay meesha dambe haddii ilaahay amarkii la kala tago in caruurtiina aad wada korsanaysaan oo aabbaha biilanayo gabadhan ay u diidaynin, yaan bartaan saxiixaan dhahnaa. ma fahamte? waraaq oo dee shahaado oo dowladda ka rajis garaysan maaha. waxa adigaasa internetka intaad template aad la soo bixi kartaa, haddaa rabta anaa imaadi karta waa ku siinayaa. markaan wax hadda maaha maxaa la dhahaa civil certificates oo kale maaha, civil marriage maaha kii dowladda ka rajis garay. laakiin alxamdulilah horta waxaan hadda idiin sheegaya good news, dowladda ingiriisiga inay soo wado nikaax aan la suubin doonin oon shahaado loo suubin. waa waxaan hadda ka horan arrintan waa arrinaan anagoo odayaala ka hadalna. marka hadda meel kasta tag inaad hero, war walaalow youtube gal, waxaad arki doontaa aroosyo baran lagu qabtay. hal sheekha oo waraaq shahaadaha qoraya oo dhahaya waa nikaaxiina waa qabsado dhahaya ma jiro. kulley ani intaan arkay, intaan baari waayo, waraaq yaroo qorqortiyo inuusan gabadha magaceeda hilmaamin ama wiilka magaciisa hilmaamin waa jirta oo markaas la qoriyo, oo markaan ma garanay markaas idaa la tuuri doono ama la dilaaci doono ma aqaano. laakiin qof sheekha oo soomaaliya culamo ahoo waraaq qoriyo gabar siinaya ilaa haddaan ima arkin. waa jirtaa masaajidaha barkood waa bixinaa ay dheheen, masaajidaha barkood markaan u taga waxay yidhahdeen waa bixinaa macal cusmaanow. laakiin goormaa la bixina ma taqaanaa? waxaa laleeyahay gabadhii iyo wiilkiiba markii nikaaxa dhaca ayay masaajid tegayaan, markii kabacda lasoo xasuusanaya timeka iyo saacaddi iyo seconka gabadha la nikaaxay mataqaana markhaatiyaashii magacyadooda meeqaay ahayen, saxiix hataa lama hayo, markhaati waa tageen lama hayo, saxiix lagama hayo. markaasaa leeyahay okay masaajidkan kugu siinaya dhib male. yani wixii dhan waxay iska noqdeen simple. nin waxaa jira maalinaxaase gabar aan ku nikaax rabni, warniya waxaan ugu adkaysanayna miyahu mataqaana waxa noo kala tuuro, marka waan u kaadina oo tartiibta waxaa kuu dhamaynayna shahaadan ku siinayna u kaadi wariga taw yiri. isla markii masaajidu galay, ilaa waxaan waa tradition loo bartay moogta, wadaad buu u yeeri gabadha dalka ma joogto Soomaaliya jirtaa, insha allah gabdhaha Soomaaliya laga soo nikaaxaya program kale aan soo wadaa insha allahu tacaala. isla markii midaa u kala tuuray. marka fadlan ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa say yihiin waa inuu raacno. nuun walqalami wamaa yasturuun, iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam. laba malaa'iga meeshan wax bay kaa qorayaan. idaa tadaayatum bidaynin ila ajalin musaman faktubuuhu. nikaaxa owlaa ka in la qoro waa muhiim. marka fadlan waxaa la qorayan waa idiin sheegay walaalaha sharafta leh, khaasatan culamada la hadla meeshaan. waxaa la qorayaa ninka magaciisa, maalinta la nikaaxay, daydka iyo timeka, seconka meeshaan la fadhiyaa la qoraya agow maaha markii laga kala dareera. qiimaha maharkaa la qorayaa, saxiix ninkaa laga saxiixayaa, magaca gabadhaa la qorayaa, weligeeda gabadha mas-uulkaha la qoraya walaalayaal, iyo saxiixiisa.
mataqaanaa markhaatiyaasha la qorayaa saxiixooda meesha lagu qori waxaa kaloo la qorayaa sheikha nikaaxay hadda gabadha nin nikaaxay nin kalama kala taqaano ma fahanti markaan saxiis intaas waa wax iska sahla simple as that marka fadlan culamadeena sharafta leh arrintan kulley haddaan qor dhowr jiran ka hadlay laakiin hadda nikaaxa badanaan tagaa meeshaa lagu kala dareeraa cuntaa la cunayaa waa lagu kala markhaati iyo wax laga hadlaa iyo magac iyo wax yani waa habash runta markaan idin sheegay ma dhahay anigu nikaaxi shuruudiisi waa la dhamaystiray welig waa loo yeeray wax kas diinta islaamka waa la waafajiyay anigu taas iyadaa hal mar ma firki laakiin wax caddayna lama hayo wax caddayna lama hayo marka fadla waa idin baryahay in tansurullaha yansurku buu yiri diinteena islaamka haddaa diinta islaamka ku gargaarta ilahi waa ku gargaarayaa diinta islaamka sheekh waxay ogoshahay wax kasta in la qoro si aan lagu hilmaamin adigaa la rabaa inaan dadku horkacno marka fadla waan ku baryahay ka bilaabata beri haddaa gabar lagugu yeero waraaqdaada oo qoran oo waxaan hadda meesha kusoo qori kugu qoran tahay la tag koobina gabadha sii koobina wiilka sii hadday gabadha meesha joogin weligeeda faraha ku saar baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr jazaa ilaahay subxaana watacala naga dhigi kuwa diinta islaamka gargaara kuwii run ahaantii diinta islaamka waxay rabtay iyo qoraalka ay rabtay iyo kuwii fulay allaha naga dhiga intaasaan kusoo koobaya programka nolosha dhabta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu